Madanta waxaa uga tagtay isku dhacdeen mase caadi oo kala tagtay waxay leeyihiin baa ismaraanta waan ka tagnay uu dhahay Xuseen miya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aniga Fuuxiso oo fadhina dad aragtaan waxaa waaye waa back cadwa soo laabanay maalmahan xanuun culays bareys iska jiray markaas darteed oo isweynay kulay community-ga YouTube-kan soo dhignay xaaladeena intaan waan jecelnahay inaan idinla socodsiino macnaha waxyaabaha nala soo kordho maadaama aad ugu tashataan oo na daawataan Fuuxiso barnaamijka ama meeshaan u fadhino waxaa barnaamijka horta meeshaan u fadhino waa hal mid waaye sax mid kale intana maalmahan aan YouTube ka maqnayn horta culaysiga oo jiray iyo xanuun yar aan ugu maqnayn alxamdulillah hadda caafimaadkeena boqol waaye waxaa usoo jeednaa inaan sideenii hore kusoo laabano oo ka qeylin YouTube-ka Salmaan boqol barnaamij waxaa jiray horta isma dhaanto sida ugu soo tagnay sax ilaa hadda su'aalo fara badan war question hadaa qoro like aan dhahaa soo weydiiyo su'aalo hadaa naho waxay dhahayaan ismanaanta maxaa ugu tagtay ismanaanta maalmaha lagaa waa ismanaanta maxaa dhacay ismanaanta dagaal ma ku kala maqantihiin marka su'aalahaas inaan ka jawaabo maanta soo fariista meeshaan dhammaanteen horta ismanaanto waa legend waa best YouTuber in Kenya waxaan leenahay horumar wanaagsan dadkana marna way wada shaqeeyaan marna waa la kala tagaa labada qof oo isla dhalatay laba qof oo saaxiibaa laba qof oo isqabto inta islama joogayso dadka dalba kala wada marka ismanaanto horta aad u weyn intaan soo wada shaqeynay wax maana wax caadifada maana ku arkay thanks you maasanyiin halkaan aan maad celinayna wax xumaan ah oo kala tagnay ismanaanto ma jirto balse annaga waxaan go'aansanay maadaama aan dad talent leh oo hadli karo oo wax sameyn karo aanna inaan YouTube furana go'aan ku gaarnay maadaama ismanaanta aan la shaqeyn jirnay oo de shaqaale aan ka ahayn marka dib kale ma jiro Soomaaliyeed meel kasta joogtaan su'aasha sida uga qanca dadka commentiyada maalin kasta bacbac soo siinaa hal ilo war TikTok balaayo baahan video wadigi waay war TikTok maalmahan waa mashquulay isaga naftirkiisa TikTok waa ka mashquulnay laakiin hal video hees marka ku tuuro waxa la waay ismanaanta soo tagtay heesta dhan iyo dhaqaaqa dhan dhaqaaqa sa u qodbooday lama fiirnaa waxa la waay sabab waxba jiro dib ma lahan commentida oo TikTok oo igu soo qorteen qofka wuxuu dhahay Faisal bin Caalimiya Faisal bin Cali wuxuu dhahay Fuuxiso baa ismanaanta miyaad ka tagtay kuma arko maalmahan jawaab please thanks waxaa ku qanciyaa walaalayaal channel baa furtay iyo daraac films baa la yiraahdaa igala soo xiriir kaas weyn maxay dhahaan kaas jawaab ma ahan jawaab anaga waxaan rabnaa oo toosan macnaha ayaga waxay ka wadaan ismanaanta waxaa uga tagtay isku dhacdeen mase caadi oo kala tagtay waxay leeyihiin baa ismanaanta waan ka tagnay uu dhahay Xuseen miya abay ismanaanta waan ka tagnay abay ismanaha waa ka tagnay waa run sababtoo ah meel ismanaanta dadku ku daawan jireen atriishada maaragta ugu tashtaadka ahayd marka way ku qasban yihiin inay ku tagaan maaragta dadka ay ku xiisaan ama waxaa leeyahay xumaan meeshan uga tegin waxay uga tagtay waxaa horta qof markuu dukaan ka shaqeynayo maanta haddaad dukaan ka shaqeynayso shaqaalo ka tahay berri marka adiga lacag heshid ama wax fiican heshid ama wax aad qabsan kartid aad heshid waxaa laga yaabaa inaad dukaan kala furitid oo shaqaalnimadii aad iska daysid marka dhib kale ma jiro hanad wuxuu dhaha isagana Fuuxiso ismanaanta miyaa ka tagtay iga soo jawaab walaalo shukran Fuuxiso ismanaanta way ka tagtay waan ka tagay ismanaanta waan ka tagay hadda idin dhahaya like commentiyadiina hadda idin akhrinaya muxuu dhaha wiilkan Maxamuud Xasan muxuu dhahay maxaa ismanaanta ugu baxday su'aal ismanaanta sababta ay uga baxday uga jawaab dadka aan maanta dhan oo Naciima
naciima 282 waxay dhahday fooxisa maxaa ismaanta ugu tagtay abbay noo soo jawaab. dad waxaan arkay soo qorayaan tiktok videoga ugu dambeeya soo dhigtay adeysid aniga channel furtay su-aasha ugu badan waxay tahay abbay maxaa ismaanta ugu tagtay fooxisa abbay ismaanta sababta ugu tagtay maxaa noogu sheegi weyday adiga iyo kooxdaada kale ee Saami Suldaan Casri iyo Samiiro waliya qofkaana sax magac ugu qorno iyo user bisa ku qoran idinka dhan oo soo qaatay maxaa ugu tagto adin maxaa ugu soo tagtay horta aniga ismadaanto legend waaye anytime big bro isla hadalna kaafina isla hadalna oo wax maata hadda oo dhax taalo ma jirto sababtoo ah Kaafi was the best director ismadaanto director kaliya ee filmaanta sameeyo legend uu aaminsanahay big bro waa ninka maaragtay jilaaga ah ee kala wada ismadaanto waxaan leeyahay waxaan anoo qalbigeena in kala hadlayo ismadaanto waxaan leeyahay guul Allah idin gaarsiiyo anagana Allah na gaarsiiyo dhamaanteen aniga xumaato ugama tagin ismadaanto kow cid xumaysa ma jirto cid hadal xun idhaahday malahan markaan ka shaqeynayo cid macnaha aan maanta wax ka tabanayo oo ismadaanto darteeda ugu tagaan lahaa ma jirto balse anaa waxaan go'aansaday inaan shaqaalanimada ka baxo oo aan YouTube furto mooye dhib kale ma jiro wixii hadda ka dambeysana insha Allah idaraac filmisan furanay oo aad idinkana ma aragtayna garab istaagteen meelaha ma aragtay baahiyooyinka ugu badan marka qof YouTube furto looga baahan yahay insha Allah oo naga soo xaqabtirteen alfa mumruq waa maasantiin ismadaanto xumaanaynatii horta waa iwaashin Soomaaliyeed Soomaaliyeed waa iwaashimaad wax meesha soo fariisiyay waxay tahay su'aalahaas ina idinka jawaabaan halkaas soo fariistay sababtoo ah WhatsApp wax waa gashan waaye Messenger wax waa gashan waaye TikTok wax waa gashan waaye Instagram wax waa gashan waaye nighting waxay leeyihiin what sababta ugu jawaab laada waxay tahay dagaal baa idinka dhaxeeyo ismadaanta dagaal ma dhaxeeyo qof wuxuu soo qoray waxaan way isla weyntahay qashinta waa leecayna caadi way u dhamaanaysaa أنا إذا كم ضيسنايو like أنا وأنا جعلهاي ذكياتين جعلهاي تين ما أنت هذه هذا إداوم لهن ومجا يل لهن مجا ما يل لهن كنت في عام الشلي هذا مجا يل أنا اللي أكون ما أنت أنا هذا مش أشوف إذا سيقاري كرو وعدس جالسين كرو أنت أصلا بينهم إنه حللنا هاي رموز بحدا عن عركة عبار يجرو إذا كان عركة عبار يجسين كم فاهم مركا ولا ليش منانتو واحدة قال ما دحيالا حبين إيمان بس لا هذا نيروبي أسرتشوفنا لكن ضد نيروبي وذشوفه أن إسكو إيمان بقول كي بقول ويجران وان كلام مشغولنا يوتيوب channel كان أنا علينا كمشغولنا حتى واحد إسكده موقف كلام تصدق كرنا وماي marka channelka anaga leenahay ka mashquulnay wax kale iska daayay marka cadafad kale nama dhaxtaalo dad walaalahay waaye mar walba isla hadalnaa marka hadis idinkana saas ula socdo dagaal ma jiro wax jira malahan ana go'aansaday inaan channelkan furto Salmaan Boqor waa u soo bandhigay walaal macaan channel furto oo adigana adiga isgarab istaagno oo channelkan ka wada shaqeysano diyaar marka waxaan leenahay asxaabta ugu qaaliga ah horta maalmahan dambe riwaayado waxyaabo badan ay soo bandhigi jirnay fikradaha hoos nagu soo wadaagi jirteen maalmahan dambe kama hayno hadii aad jeceshahay in film lagu soo dhigo riwaayad ama prank waxay ma aragta aad jeceshahay fikirka hoos ku soo xus sababtoo ah dadka qaar prank ay jeceliin dad waxay jeceliin film dad waxay jeceliin challenge marka insha Allah hadii challenge fikradiisa ay sid ama prank fikradiisa ay sid hoos ku soo xus insha Allah hadii la yiraahdo qaabka ururtida lagu sameeyna adaa wax kugu nahay waxaan leenahay Soomaaliyeed meel kasta joogto hadaa dadii Salmaan Boqor koofid kasiibo kasiibena taas madaxayga ma vision oo Salmaan Boqor wajgiis maxaa maalmaha uu isbedeli maano raacatumo sidii hore ma aha xanuun ay galay ilaa iska xanuunsaday miskiin Ilaahay baa iska dadka dhan baa miskiin Ilaahay iska marka waxaan leeyahay wax la baryo Allah ugu wanaagsan caafimaadka Allah nasiiyo ma sha Allah idinkana inta noo soo duceysay iyo inta maaragtay loo soo gashay assalaamu alaykum waan idinkaga mahadcelin